kulan ballaaran oo tacsi iyo duco ah ayaa maanta loogu qabtay hoteelka Double Tree ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Kulankan oo ay soo qaban qaabiyeen jaaliyadda Soomaalida Minnesota ayaa tacsi loogu diray Allaha u naxariistay madaxweynihii afraad ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed oo ku geeriyooday magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay bulshada qaybaheeda kala duwan oo ay ka mid ahaayeen xildhibaano, wasiirro hore iyo mas'uuliyiin ka tirsan jaaliyadda Soomaalida Minnesota, kuwaasi oo dhammaan tacsi u diray Allaha u naxariistay Cali Mahdi Maxamed. waxaan soo taagay insha Allah maanta isugu nimid tacsi aan u tacsiinayno madaxweynihii hore Cali Mahdi Maxamed. إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون maalinta uu dhintay oday cali meel baa itaabatay runtii ninaan aad isugu dhownahay ahay odagiina soo barbaariye u ahay markaa runta idin sheego meel baa yara maaragtay si iga noqotay nin abwaan hoon aan jecelahay oo runtii aan kelimadiisa aan jecelahay ama gabagiisa aan jecelahay ayaa ii soo qoray tiir baa jabay intaas bisoo ii soo qoray tiir baa jabay waxay igu noqotay marka waxay iga adkaatay dadkii beejka iyo labada soo qoray iyadaa iga adkaatay qalbigayga ku dhacday. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan tacsida iyo tiiraanyada la qaybsanayaa dhammaan ehelka iyo asxaabta iyo dhammaan idinka waxaana la ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u naxariisto madaxweynihii hore Cali Mahdi. waxaan la qabaa intii dhammaan inta laga yiri oday dhaqameed iyo wadaadaba waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun dhammaan waa idin salaamayaa inta ehelka iyo asxaab salaam calaykum. halkan waxaanu isugu nimid inaan isaga tacsiyeyno marka koobaad li'annahu tacsiyadu waa tacsiyad qarane ehelkii madaxweynihii hore Cali Mahdi Maxamed iyo annaga dhexdeennaba inaan ka tacsiyeyno geeridii ku timid madaxweynihii hore Cali Mahdi Maxamed. asoo daarta Soomaaliya ugu dheer meel ka jirto samaysay ayaa haddana qulubtiisa waxaa ku sawreeday oo nabar ilaabin inuu maalin u dhimo doono sida culimadu sheegtay masaajid uu dhisay weyn oo dharku birid wada ah dhul wuxuu soo reebtay markaa reserve oo wiri aniga marwadayda iyo caruurteeda wixii kale soo hara halka aan ugu aaso marka qof kaste adduunyadu ay u haysta marka heel ka gaaro inay inta ku eg tahay ma ahay sida uu shaqaysto marxuunkaas amba soo u fikirayay waa inaan ku fikirnaa. marka anaga adeer Cali waxaan ognahay bini aadanka ayaana marqaati ah marka inuu wanaag ka tagay maxaa la yiraahdaa aabba Soomaaliyeed ahaa oday Soomaaliyeed oo ahaa intaas baa maanta qiimo ugu filan kulli adduunyo joogaysa malaha ilaahay jannatul firdaws ha geeyo qabrigiisana nuur Allah ha ka siiyo intuu ka tagay oo aan annagu ka mid nahayna sabri iimaan waasic Allah naga siiyo. حاج علي مهدي إلهي جنة الفردوس هجيو أولاديسي يقويسكيسي يبارتا ومدة الصومالية ضدنا إلهي مارت السمرة كسيو علي مهدي أنا وحنا هندرس عرورته إذا أنا سدح عنق وقرون رون الصجا أيكو أفبرتين جورجاني جورجيس وسكود كرايين أنا مدحونا ومنا ملايين جريد دتكوس كجد حجري ما شاء الله سيدو ومدة وها والله جعل إلهي وجعل هذا جنة إلهي هجيو إن شاء الله. وحن Soomaaliya idil kala qayb qaadanaya tacsida madaxweynihii hore mudane Cali Mahdi Maxamed Allah u naxariisto qabrigiisa Allah u waasixiyo intii uu ka tagayna sabri iimaan Allah ka siiyo anagana Ilaahay gadaashiisana ma fidneeyo. anaga waxaan ka mid nahay reer Hirshabelle haddaan nahay waxaan ahayn dad aad isugu dhow saaxiibo ah marka aan magaalada Xamar imaano waxaan dhihi jirnay madaxweyne ma dhihi jirnay Aabba Cali aan dhihi jirnay gurigiisa markaan tagno si fiican ayuu noo soo dhaweyn jirnay dhalinyaro ahaan wuxuu na siin jiray dardaaran iyo khibrad inta uu ka haystay wadanka
Cali Mahdi Maxamed ayaa dalka Soomaaliya madaxweyne ka ahaa intii u dhaxaysay sanadihii 1991 ilaa 1997. Asmar Cabdinuur, Nabad TV, Minnesota.